kusoo dhawaada dalxiis iyo deegaan barasho waan galabta ku soo qaadanayno taariikhda magaalada Buurdhuubo ee gobolkan Gado. Buurdhuubo waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Gado. Waxay dhacdaa bariga gobolka, gaar ahaan xuduudda kala qaybisa gobolka Gado iyo Baay. Waa magaalo dhul beereed wax soo saar leh oo ay ku manaystay. Waxaa mara webiga Jubba ee ka soo bilowda Itoobiya kuna dhamaada Goobweyn Jubbada Hoose, Soomaaliya. Waa magaalo ku taalo dhul carsan ah oo ciideedu ay yar tahay meelaha laga helo Soomaaliya. Dadka dhulka yaqaana waxay ku sheegaan in Buurdhuubo ciideedu ay tahay dahabi, taasi oo ah carrada ugu wanaagsan carrooyinka. Xagga dhaqashada xoolaha nool waa ay ku wanaagsan tahay degmada. waxaana jira xoolo dhaqato badan oo degmada ku nool, kuwaasi oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsan yihiin dhaqashada xoolaha nool, cadkooda iyo caanahooda. Buurdhuubo waxay martigelisay qaxootigii ugu badnaa ee Soomaaliya xilligii dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, gaar ahaan xilligii laga soo laabtay dagaalkii 1977 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. dowladdii dhexe ee Soomaaliya degmada Buurdhuubo uma aqoonsan degmo mararkii hore, balse aqoonsi la'aan ka sokow waxay lahayd dhammaan xuquuqdii degmo ku lahayd dowladda, sida guddoomiye degmo, golayaal dhaqan oo degmooyinka la mid ah ay lahaayeen, ciidamo boolis ah, maxkamado iyo dhammaan adeegyada ay bulsho degmo degan mudnaayeen. Wuxuu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre maamulkii degmada u magacaabay intuu uu xilka hayay ilaa 4 guddoomiye degme, kuwaasi oo kala ahaa: 1. Xuseen Sheekh Bashiir oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyay ee ay yeelato Buurdhuubo. 2. Maxamed Shariif Xirsi Dhudi oo ahaa guddoomiyihii xigay. Irbad, nin lagu magacaabi jiray laakiin aysan inoo suurtagelin inaan helno magaciisa oo saddexan iyo muddada xilhayntiisa. 4. Aadan Xarbi Cali oo isagana noqday guddoomiyihii ugu waqtiga dheeraa, sidoo kalena mar kale Buurdhuubo kadib soo noqday guddoomiyaha degmada 1991dii. xilligaasi oo dowladdii kacaanka ay sii dhacaysay ayaa Buurdhuubo iyo 3 degmo oo kale wuxuu madaxweyne Maxamed Siyaad u magacaabay degmooyin, waxayna kala ahaayeen Buurdhuubo oo Gado ka tirsan, Cadalle iyo Warshiikh oo Shabeellada Dhexe, iyo Xagar oo Jubbada Dhexe ka tirsan, kuwaasi oo lagu soo saaray faafinta rasmiga ahayd ee dowladda, sida uu xaqiijiyay guddoomiyihii hore ee gobolka Gado mudane Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil Xuseen Fari. wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii kacaanka oo u baxsatay Buurdhuubo kadib markii hoggaankii dalka ee degmadaasi martigelisay, waxaa iyana soo maray guddoomiyayaal kale oo dhowr ah, waxaana ka mid ahaa Cabdiyare Garabroor, Aadan Xarbi oo mar labaad soo noqday guddoomiyaha degmada, Cabdulaahi Maxamed Shukuul Cabdulaahiyow, iyo Xasan Yare iyo Cali Shariif Cabdulaahi oo hadda ah guddoomiyaha degmada Buurdhuubo. dhismihii maamulka Jubbaland ayuu Axmed Madoobe xaqiray 3 degmo oo gobolka Gado ka tirsan oo midu tahay Buurdhuubo. xilligii dowladdii kacaanka degmo ahaan loo aqoonsaday iyo Ceelcadde iyo madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf u magacaabay degmo, taasi oo beddelkeeda waxa uu Axmed Madoobe meel marsaday Xagar oo Buurdhuubo la wareegto ahayd, iyo Salagle oo Ceelcadde la xilli ahayd. nasiib darro lama helin dad sidaasi u xisaabtama oo u dooda xuquuqda degmooyinkooda. Axmed Madoobe ayaa mar kale sheegay in uu degmonimo u aqoonsaday Buurdhuubo iyo Dhobley. dhinaca sharciga degmooyin waxaa jira weydiimo badan oo taagan oo ay ka mid tahay: ayaa xaq u leh in uu degmo magacaabo, ma dowladda dhexe mise maamul goboleed? dastuurka ma qeexayaa shuruudaha uu deegaan degmo ahaan uga gudbi karo?
bacdama ay yihiin arrimo sharci la xiriira. waxaa wax laga weydiiyey garyaqaan Cali Soomaali oo ka mid ah dadka ku xeel dheer xeerarka Soomaalida u qoran. garyaqaanka ayaa tilmaamahani ka bixiyey degmada iyo weliba shuruudaha ay degmo ku noqon karto. 1. degmo waa deegaan leh sohdimo cayiman. 2. ka kooban ugu yaraan 5 tuulo. tuuladu waa inay leedahay shuruudahan: waa inay ku nool yihiin ugu yaraan 10,000 oo ruux. waa inay leedahay dugsi hoose, dugsi quraan, rag boolis, xafiis dowladda hoose iyo xarun caafimaad. soona saari karto boqolkiiba 14 dakhliga guud ee degmada. tirada dadka degan degmada waa inay yihiin ugu yaraan 50,000 oo ruux. 4. waa inay soo saaran karto dhaqaalaheeda ugu yaraan boqolkiiba 70. 5. masaafada u dhaxaysa labada degmo waa inaysan ka yarayn 40 kilomitir. dadka gadow dhagaha fura Soomaali way ku diidan tahay halladinaadi waa hore dibooga may noqon halladinaadi waa hore dibooga may noqon dubinadiina lama furin dilaalaya milal damin dabadhilifiya dayus dantiina kuma jirtay ogo dabacsaani dulqaad isfaham dhashiya matalada dabaa la doonaya